بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على حبيب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ولليال إلهي تبارك وتعالى أيام هذه له الله صون سوق قارسيي بشهر رمضان inteedii badnaydna noo dhammaystiray. ilaahay waxaan weydiisanaynaa intii maalmood ee ramadaanna soo dhaaftay inuu noo wanaajiyo acmaashii aynu qabanaynay, annagoo soo gaarnay 10kii ugu dambaysay. qofkii dadaalay 10kaa wixii ka horreeyey ha sii dadaalo, qofkii gabood falayna 10kaan ha isgarab qabto, ha isdaba qabto 10kaan dambe. ramadaan wuu baxin wuuna soo noqonayaa, laakiin waxaan soo noqonayn waa cimrigeenna ee maalin kasta iyo daqiiqad kasta sii socda. aynu ku xisaabtanno walaalayaal. ramadaanku waa bishii khayraadka, waa bishii iscafinta, waa bishii dembidhaafka, waa bishii xiriirinta, waa bishii istaageeridda iyo sadaqada, waa bishii walaalnimada iyo wadajirka, waa bishii saamaxaadda, waa bishii xasanaadka la kororsan jiray, waa bishii mu'miniintu qulubtooda ay qaabilsiiyeen xagga mawlahoodii allaha tabaaraka wa tacaala. waa bisha uu si dhaba u xisaabtamo qofka mu'minka ah. ilaahay tabaaraka wa tacaala nagu toosiyo inaanu xisaabtanno, dembigeenana allaha noo dhaafo, ilaahay camaasheennana ha noo hagaajiyo, tawfiiqdana allaha na waafajiyo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga leexiyo waddooyinka halaagga, ilaahay ha nagu toosiyo waddooyinka guusha iyo maaragtay najaaxa. bishaan ummad badan baa soomaysa, aada u tiro badan, laakiin waxaa jirta dadka qaar ka mida oo soomka ay soomayaan ilaahay uusa ka aqbalay. 10 qof ama 10 ruux ilaahay soomkooda aqbali mayo. ee aynu iska ilaalinno naftaada 10kaa inay ka mid noqoto. ka ilaali walaalkay muslimkaayo. 10kaan laga aqbalayn ramadaanka noocaas waxaa ugu horreeya waa qofka mushriga ah, waa qofka cibaadada ilaahay qof kale la wadaajiyey. walow laa ilaaha ila allah ha yidhaahdo. shirkiguna waxa weeye waxyaalaha ilaahay khaaska u leeyahay ee addoonkiisa uu ka dalbaday in addoonkii uu la wadaajiyo alle wax aan ahayn. sanam, qabri, sida cibaadooyinka kala duwan sida ducada, allabariga, tawakulka, cabsida teeda khaaska ee ilaahay gaar u leeyahay, gowraca iyo nadarka iyo waxyaalaha la midka ah, towbadda ay la ka mid tahay. idan mushriga ilaahay ka aqbali mayo. qofkan hadduu cibaadadii ilaahay meel kale u leexiyo oo ilaahay cid aan ahayn uu la wadaajiyo, ilaahay wuxuu leeyahay adiga iyo waxaad ila wadaajisay waa iskaga kiintaga camalkiina, anugu qani baan ka ahay waxaan. ilaahay wadaag ma qoro, ilaahay wadaag ma yeelo, ilaahay waa qani madax bannaan. cibaadadaada marka sax, lianna soomka, salaada, xajka waxaanoo dhan waxaa celinaya waxa weeye waa tawxiid saxa wey. haddii kale arrintu waxay noqonaysaa weel dabada ka duleelo oo wixii lagu shubo gadaal ka sii daadanayo. muhiim weeye tawxiidka inaynu xaqiijinno, lianna waxay ka sinnaayeen nebiyaasha ilaahay, kii ugu horreeyey kii ugu dambeeya, oo nebi kasta ugu yeeray qoomkiisa u lahaa ucbudullaha maa lakum min ilaahin hayru. waa tawxiidka weye, waana waxyaalaha ilaahay dadka amrkan ugu weyn. shayga ugu weyn waa tawxiid. waxyaalaha ilahay dadka ka reeba wax kan ugu weynna waa shirki. aynu ku baraarugna taas maralayaal. ilaahay asagoo nebigiisa la hadlayay wuxuu yidhi lain ashragta, nebi maxamed asagoo lala hadlaya, laakiin nebiga looma jeedee aniga iyo adigaa loo jeedaa. haddaad shirki samaysid camalkaada waa baaba'aya. acmaashaasna waxaa ka mid ah soomka iyo cibaadooyinka kale. qofka kale waxaa weeye ee labaad munaafiq. munaafiqu waa midka uurka gaalka ah korna muslimka ka ah. sidaa darteed nebi maxamed waxaa la joogi jiray niman munaafiqiin oo magacyadoo la yaqaano, soomi jiray, xajin jiray, bal nebi maxamed raaci jiray oo jihaadka la geli jiray. haddana waxooday waxay ahaayeen hal bacaad lagu lisay. korkaada iyo hoostaadu ha iswaafaqeen, uurkaada iyo afkaadu ha iswaafaqeen. qof laab salaaxan oo qulubtana nadiifka ah, korkana nadiifka ah noqo. qaybta kale waxaa weeye qaybta 3aad iyo qaybta 4aad iyo qaybta 5aadba xadiiska nebi maxamed laga wariya ayay ku sugan yihiin. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi 3 laa yuqbalu minhum laga aqbali mayo 3 dadka ka mid a
sarfan walaa cadla waajib iyo sunnatoona laga aqbali mayo. saddexda waa kee? kan ugu horreeya alcaaqu liwaalidayh, kan ku caasiyey waalidkiisii sababtuu ahaa inuu adduunkan imaado, hooyadii aabihii ku caasiyey, waalidkii ku caasiyey, kaas ilaahay soon iyo salaad sunno iyo waajibtoona ka aqbali mayo. midka kalena waa almannaan, waa midka faanka badan oo wax markuu bixiyo qofka u manna sheegsada oo yidhahda shalaan waxaasaan ku siiyey, qofkiiba wixii aragtay iskugu xayisiinaya, mannaan baa la yidhahdaa, galad sheeganaya. midka saddexaad waa almukadib bilqadar, qadarka ilaahay kii beeniyey oo dhahaa ilahay waxba maba qadarinba, wuxuu markay dhacaan buu ka war helaa, ama haddii alla kuu ron yahay waxaa jira wax kaloo wax qadara oo aan alla ahayn, qadarka ilahay karin kara wey. qaybta lixaad waxa weeye waa midkii diinta ilaahay ku jeesjeesa, wax sugnaaday oo calaamaadka diinta nebi maxamed ka mid a qofkii ku jeesjeesa. warma ilaahay baad ku jeesjeesaysaan oo rasuulkiisaaad ku jeesjeesaysaan oo aayaadkiisaaad ku jeesjeesaysaan, ha cududaaranina, waad gaalowdeen. mid gaalana ilahay wax kama aqbalo. ilaahay diintiisa wax ka mid ah ku jeesjeesa, si kaftan ah iyo si dhab ah, si maaragtay niyada iyo si aan niyad ahayn, marna diinta ilaahay ku jeesjeesa wax ka mid a. marka midka mustahsigu ilaahay wax ka aqbali mayo. kan toddobaad waxa weye waa qof ku dhacay wax jabinaya islaamnimada ama shahaadateynka laa ilaaha ila allah muxamedan rasuulullah, wax jabinaya. leanna laa ilaaha ila allah ama islaamnimadaada way buraysaa si salaada iyo soomka iyo xajku ay kaaga jabaan iyo weysada oo kale. marka ilaali. qaybta 8aad iyo qaybta 9aad iyo qaybta 10aad xadiiska cabdullahi ibni cabaas bay ku sugan yihiin. rasuulka wuxuu ka wariyay cabdullahi ibni cabaas xadiisulqudsi oo rabulciza laga warinayo jala jalaaluh. malaa'igtu waxay leedahay ayadoo jibriil la hadlaysa, yaa jibriilow ma sanaca allaahu fii xawaa'iji almuslimiina aw ilmu'miniin, ilaahay muxuu ka sameeyey danaha muslimiinta iyo baahida ay mu'miniintu qabaan oo min ummati muxamed sala allahu calayhi wasalam, ummadda nebi maxamed ka mid a. fayaquulu wuxuu leeyahy jibriil calayhi salaam, ina allaha tacaalaa nadara ilayhim, ilaahay wuxuu soo fiiriyey mu'miniintii iyo muslimiintii, wa cafaa canhum waana iska cafiyey, wa gafara lahum wuuna u dembi dhaafay, ilaa 4 qof mooyaane. markaas waxay ku dheheen man haaulaa'i alarbaca, 4taasi waa kuwee? qaala wuxuu yidhi mudminu khamrin, midka khamrada saa'id u caba, khamra cabaha ilaahay uma dembi dhaafo, iyo qaaticu raxim, iyo midka qaraabadiisa gooyey. waxay ahayd intuusa soom soo gelin inaad qaraabadii aad isgoyseen isku xumaata inaad xiriirisid. qaraaba gooyaha janno ma galo. iyo midka kaloo ah mushaaxin, midka loo yaqaano cuqdadlow, xumaan buu ugu hayaa qof kale uurka, cuqdadu kama baxdaba, kaa looma dembi dhaafayo. qiila waxaa la yidhi yaa rasuulallaahi waman ilmushaaxinu, mushaaxinku waa kee? qaala huwa almusaarim, waa midka wax gooyey waay, cuqdadlowga waay. yacni waa midka qofka walaalkiisa aan la hadlayn 3 maalmood wax ka badan. qofka haddii aad isku dhacdaan 3 maalmood sharcigu uu ku fasaxay in xoogaa ay uurka waxaa ku jirtay aad iska soo saartay, laakiin 3 maalmood wixii ka dambeeya waa inaad la heshiisaa walaalka. rasuulkeena wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, labada qof isku dhacda kan ugu khayr badan waa midka salaanta hor bilaaba iyo hadalka. allahu akbar. maanta dadka muslimiinta isku dhaceen, xumaan bay iska wada sheegayaan, fadeexad iyo ceeb, dhibaataa ka wada jirta meel kasta. marka musaamaxada aynu ku dadaalno. mushaaxinka culummada xataa markay fasiraya waxay yidhahdaa waa midka sunnada nebi maxamed ka tegey, waa midka diinta nebi maxamed neceb, waa midka sunnada nebi maxamed neceb, waa midka jamaacada iyo muslimiinta ka faaruqay, waa midka muslimiinta dhiigooda xalaalsaday sida khawaarijta iyo waxa la midka. waxaasoo dhan ilaahay soom iyo salaad sunno iyo waajib ilaahay ka aqbali mayo tabaaraka watacaala. kan afraad xadiiska lagu sheegay, xadiiska horena kusoo marnaya, waa midka waalidkii ku caasiyey. nasalullah alcaafiya fi dunya walaakhira. aynu ku dadaalno marka xumaantaas iyo waxyaalaha cudurrada inaan iska ilaalino. qof muslim ah oo toosan oo laga ammaan helo aynu wada noqono. ilaahay tabaaraka watacaala waxaanu u weydiinaynaa inta dhunsan inuu ilaahay soo hanuuniyo, dhammaanteenna ilaahay tawfiiqdana waafajiyo, ilaahayna islaamnimada iyo iimaanka iyo sunnada nebi maxamed nagu dilo, si aan ilaahay taa ugula kulanno, darkii nebi maxamedna aan nooga cabno, derisna aan la noqonno rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam. hada wabilaahi tawfiiq, sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed وعلى آله وصحبه وسلم، وبالله التوفيق، والسلام عليكم
waraxmat ullaahi wabarakaatu.